السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا ونكسن لما دتكنا داونا ملكستا جوجتان ولكن ميموجة خالي the queen of the TikTok دالك النرويج ولي world ما نقول دالك النرويج اللي تاجنا عيد ونكسن دمان ومد الصومال ملكستا يكونوا شاي جارهان دالك النرويج وأنت جنا مقالة مدة حديث أصلا لما أنتوا تمشي كده كنت دالك النرويج ما كل صارين يا kusoo dhawaada barnaamij gaar ah kaga hadli doono munaasabada ciida dadka Soomaaliyeed ee degan dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo sida looga ciiday iyo barnaamijka ugu weyn aan ka hadlayno waxay tahay bandhig faneedkii xalay ka jiray dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo oo uu fanaanka weyn ee Khaliga walaalkeen ee noogu imaaday halkaas iyo Minneapolis iyo dalka Mareykanka ariga Mareykanka ma la jiro dalka Mareykanka noogu imaaday dal Maryare iyo barnaamijkiisii maxaa ka dhacay xalay waxa ku wareysan doona Khali inkastoo aniga aan joogin laakiin Khali ayaa dhex fadhisa xalay say wax u dhacaan maxaa kala qabsaday King CK iyo Mrs. Khawan oo ku salaam Mrs. Khawan hada daawanaysta xalay waxa la fooda wadi kusoo dhawo Khali barnaamijkeena kaga hadlayno munaasabada ciida sida loo ciiday iyo gaar ahaan barnaamijka ciida bal markuu horeysa adiga say ku ciiday ciidaada say يديد ما شاء الله هيك إنكستو أنتو قبل حفظة وقاطة صوبتوا دالمري حسود وينها مالنتي كورس واز ديارنيس أو سود وينتا كجرت سود وينتا كجرت ها قضتك وحا هذا المرسود وينها نسمي أولادك حيسينتا مركم سود وينها صارنا ده واحد نواس كجرت سنة ده قبيلة سعودين أوكي رونهانتي وحنا كسب بلاوينا برنامج كسود وينتي أربوركا كتكتين maalintii sabtiga ahayd ciidii wixii dhan marka bal aan gudaha u galnay barnaamijka dalmar waa soo dhaweyseen magaalada Oslo yimid maalintii sabtiga ahayd isla maalintii showga lahaa oo waqti yar u dhaxaysay saacado okay waa soo dhaweyseen bal runtii xafladii ay isku diyaarisay intaas la wada sugayay fannaankeena dalmar oo markii ugu horeysay dalka Norway oo imaado gaar ahaan magaaladan Oslo soo dhaweyntiisii marka ku sugtay waxa la gaaray showga qaab nooc ah fanaaniin badan oo aan marka hore flyer ku dhiganayn hadda King CK kale flyer kuma dhiganayn ma la ogeyn lama ogeynin aniga hadda xayeysiinta markaan sameynayay maan sameeyeen hadii aan ogahay inuu CK ku jiro sababtoo ah CK waxaan isleeyahay wax yar waxa ku badan fudeedka wiil degan ma ahan midada kale tana afka dadku amaan karaadiya soo walaalkii marka xalay dadka afkooda amaana ka CK intaan gudaha u galin barortar showgii iyo qaabkiisii soo ku bilowday showga wuxuu ku bilowday horta waa soo galnay ana 4 saac tagay 4 saac markaa tagay waxay uu qurux badnaay soo fanaaniin kala joogay CK joogay dalmar joogay waxa kale joogay gabadh aad qaaliyo oo Djibouti ana ka heesaysa soo si loo heesayay nimco loo yaqaan nimco markabo dadku yaqaan ya markaba joogta laakiin nimco magaceedu ah soo markaa gabadhaas joogay gabadhaas fanaaniin badan joogay oo wiilay gabadhaas waa la heesayay soo joog degana ugu jirnay hal mar la waxa ka warxay sikii soo guuday dhaxda soo dhacay soo oo ka soo daba guuday walaashay أنا مركز ذلك كل حجرة، سيكي وحاسكو قيلي. نعم مسخاون قدالي تاجنيد بمسخاون وحاسكو قيلي يكون. كبعد حد على أنا واحد كلا حاجة لما ركوح كلها هيك كله أوكي مع اسكو كاني سيكي يكون قبل برودوسر هذا برنامج كودي تكون سيكي فنان عسومن oo flyerka gadaal looga soo daray sida aan la socono ma kor kuma jir darmal kaliyo ay baadshooga CK ku soo darso ma la waji kala to yeeshay xamaasad CK naftigiisu wuxuu wataa dad taageero oo magaaladan degan oo aniga aan kamid ahay mararka qaarkood marka CK barnaamij qurux badan oo akaaday Snapchat-kii baraha bulshada saa kala socon si fiican u dhacay especially adiga TikTok-ga si fiican kala socday si qurux badan bal aan ku weydiiyo su'aasha koowaad maxaa keenay buuqa inta udgoon iyo aan u gudbin CK murunkooda buuqa wuxuu ka bilaabay waxa ay saacayay ko أنا كربو صحنا سيكاي
Mrs. Qawana dadka gadaali ku jirtay so wax baraha bulshada la isku haystaa saamana dagaal oo ka dhacay baraha bulshada barnaamij aad qurux badan oo ahaa CK gadaal kaga soo darsoomay CK run ahaantii wuxuu ku leeyahay dalka Nuuri gaar ahaan magaalada Oslo taageero badan inkastoo aan wada sugayna barnaamijka kaliya inuu ahaa barnaamij dalmareero oo ahaa bal fanaan kale oo qiimo ku leh fanka Soomaaliyeed oo raabarada ku jira ayaa lagu soo daray barnaamijka qiimo yeeshay si walaasha noo sheegtay buuq waxaa jiray hore u socday baraha bulshada ku dhex jiray taasoo King CK iyo gabdho kaleeto oo sida la sheegay waa sida Soomaalida social media ku jira ay sheegayaan inuu King CK aflagaadeeyay gabdho social media kula jiro oo sidiisa aan la aha erga caanka waxba Soomaalida iga laakiin ogow wixii baraha bulshada ka dhacay bulshada xirfadaha in la imaado هذا example يلا كوش هيجا أنا إيو كبدا أنا ده هاي قهوين ما أسكت إحنا صح حالا مركان يسارقنا نوايس سلان سو مركا لما كانوا دجال كهالكاسك ما عندي مركا مالسني كرام مسز خاون سيكي سيجوني وسعتي وعباريسي وسيكي دجال وسعتي مسز خاون ما دجال يسميسي بس أفكلي كادش مسز خاون دجال ميسمين أفكلي كهذا شو أفك حتى وكهالي كده أفك بلادنا كان سيكي وويليرو هذا كوسو بيرة حندي كرا برا برشة كوتشي هرو كوتشي لكن ده وحندي كرا أخوان كفلون يرام هستان مثلا لكن هذا أخوان كفلون وهست صوته مركز عانت هاي عندنا متخانة أو فنان هاي أبو أو فنان يرصوب حياته هاي وحكا هريو أو حبضا ما هن دتك دان كوتشعلان يا ميمو ما هن دتك دان إني أبحي كوة دقيقان صدق كاس وهرج سنيو محل جاب بها يا مركا هذه ناس دلغات صح إيوه قفك حتى كوعايو تأنا إسكا أمس تسويته سو مركا ما هين مد كلية أو أفلقادو يقعان إسكو جرتو كلية وحد ليس مسخاون أفكك هذا شيء بس أفكك هذا شيء مال بيتهجني هاي نينجا سوبودي أو إما dadka dhaxdooda waxa hay CK soo CK qaldan aan aaminsanahay marka CK maxaa ka xanaajiyay oo keenay inuu stage ka soo degto CK batulo waxas okay eriga batulo ee ku dhaxday gadaal ka dhahay idii asxaabteeda laakiin micna weey ma sameynayso okay laakiin ma haboon tahay qof dhan oo nin rag in batulo lagu magacaabo King CK magacuu leeyahay ولا أوجيه ويكون خالدان تحت تاس حتى عيدا لقبل له مسخ خاون لكن وين بس ما يسكر سوقا فدي مركان مان سببته مركان مان سمير إماديد أو عان تحت متبع كبكو صوتوريو متبع كعينيو متبع وحكو سو عام بهذا كلها كعينيو سو إنا دول قاد لا ده هي سمر سو إنا نتلاقي سنة دتك أنت كوس سبعين سو كشعل وأنا في ستة أفرت خوفك وقيل نسيله في رسمة سو أنا حني كنا ولا الكيسي وأفلقاديسي كين سيكي ستيج كي كسودي ماشي وحكو سمي مركز هو بهيسي لكن سو حكو سودي ما جرنا سا هل كان إيمان عمل أنا صار دريم سو وسن دريم لما أنت خوف هذا دجالنا قد حاجة سؤال كويدينا حتى كين سيكي ستيج كي كسودي مسقاون مؤذي ماي أوكي ماشي marka buuqa maxaa sii badi marka buuqa waxaa sii badiyay waa ku soo degan karaa buuqa waxaa sii badiyay waxa ka daba imaaday gabadhaan la dhahay udgoon soo udgoon xatir marka kama soo degi state-ka ku soo laabay state-ka dad dagaalkaaga la dhaxeeya okay so marka King CK stage-ka ka soo degay udgoon sheekada soo gashay saan maanta aan fahmayo udgoon waxay tiri King CK stage ku laabay buuqi meesha ka bilaawday King CK stage-ka ku laabay ma ku laabanayo dhinta ana waxaan ku dhahay marka iska daa meeshiisa iska joogo okay videoda qaarkood waxaa ku arkeenay adiga oo ku dhex jiro udgoon iyo King CK dhexdooda markaas waa markii ay is haystaan oo maxaa dhahaya ay dhahayso ku noq stage-ka asagana uu diidan yahay soo marka ka bacdi maxaa dhacay كبعد واحد عايز سيكي ولا كحياة جودها لو كحياة جودها مركي لو كحياة مسخاون أو كوسود دري فاكتوين كبحنا يو الباب مسخاون so مركا مسخاون حق وملهن إنك بحضو صوته دجال ميسي حق ملها إنك تستي شغل عجز سوق شيء قفك بلا عندك أنا لقى مخلدنا هذا سيكي ماشي هو ماضي
fanaan wahay fanaanimiisuna ku akaaday inuu mataqaana xalfada ka dhex shaqeeyo shaqo ku muuleen cid hadii la bixinayo ama cid ay joogayso udgoon baa shaqo ku leeyahay Soomaha shaqowna la xiraan qabsaday walaalkii siikay okay marka siikay awood u isticmaalay wuxuu yiri misqaawun waa in laga bixiyo waa in laga bixiyo gashi udgoon ay tiri siikay ku noqo saamaxdo stage-ka meeshaasna ay uga jeednay baraha bulshada fiidiyoyada la soo dhigay khaali oo ku dhex jirto udgoon iyo king siikay meeshaas ka bacdi maxaa dhacay kabacdi xal siikay ugu laabtaa waa la kaxeeyay soo qol waxaa jira gadaal oo dadka oo loogu talagalay meesha fanaaniinta meeshaas way aaday soo kabacdina waxaa noo imaaday 3 meems 4 fakto oo socoto okay fakto waa security-ga oo venue-ga ilaalinayo oo ka shaqeynayo security ahaanka okay waxaa imaaday security-ga fakto saa noshka loo yaqaan security-ga imaaday security markuu imaaday toos wuxuu aaday qaawan wuxuu ku dhawaanaa baxo qaawan wuxuu ku dhadaa waayaan ku baxaa okay saala socotaan mis qaawan waa gabar tiktokerada dadkiina aan aqoonin baraha bulshada caanka ah magaaladan Oslo degan dalka Norway mis qaawan xaq waxa u leedahay showga ay soo gashay lacagta ka soo baxday in ay dhex joogto haddii sabab gacan ka hadal ayna jirin ama fawdo yar way jirtay in ay aflagaada siikay gaarsiiso laakiin misqaawan xaq ma laha ama xaq looga ma laha in laga saaro marka faktii waxaa loo adeegsaday sida ay khaali noo sheegayso in misqaawan banaanka la dhigo marka haddaba maxaa dhacay marka misqaawan banaanka ma loo bixiyay may looma bixine misqaawan waxay dhahdaa aniga qalad maan samaynin mana baxay lacagaan meeshaan ku soo galay waay aan u baxaya midda kale tan aan ka diidnay misqaawan okay waxaan arkaynay meesha buuq ka socdo oo la diiday la dhaama baxayso misqaawan oo shacabka Soomaaliyeed hello misqaawan ay la jireen dalka Norway ما شاء الله سوماليدا wax kasta sameey wala isjecel yahay waa gacan u taag marka misqaawan dadkii diiday ka bacdi misqaawan lama saarin showgeedii sii joogtaa ka bacdi maxaa dhacay ka bacdi waxa dhacay siika gadaal u galay dagaal u sameeyay sheegay su'aal laakiin ma hubo laakiin gadaal okay gadaal waxba kama ogid sida noola sheegay waxa dhacday gacan ka hadal gadaal inuu ka dhacay mid ka mid ah waqtaha ECK in isgacan dhaafsadeen ma hubno oo sida noola sheegay inuu dagaal meesha ka dhacay ka bacdi showgii ma sii socday ma soo istaagay yani showgii waxa yar oo sii socday baadiga hal saaxiib bar camal oo noo imaado walaalkay dalmari oo ku salaam dalmar soo walaalkay dalmar oo imaaday cabaara de meeshii de baashaalna كبعدنا دجال على عادي. دجال دبعتو سامي أو كينج CK يمسكون ما سيسو. مو سيسو عني لكن دجال كي ودا عم مكتب بوليس معضاي. سو بوليس ضوي معضنا ماشي ده مسيح فرنان كرتو. سو كبعد حال هذا الباب ده السكول أبي ضد حتى بنان كتاجنا. سو قليل. أكثر من كبار شو وحن حتى رالي جلسيننا ولكن دالمريرة ودال كان نروي كران مقالة أصل ماضي برنامج كيسين بوق يقايله وحرك جلي رنانتي هذا وقعنا هاي وحن جعلها next time ما نيسو إن حتى سيفي عن وقتها بشيء برنامج كان سقرح بدل الله دياريو هدو إلى next time ندقال دم بإنه سن برنامج عودته كدين إستاسنا كوس جرينين إن أنا نعيب نقاط النروي وأترى هذا مرة مدة كسر بادية مو تجاي مركي إن شاء الله واحد عواد عند تبدأ بمرة عدونته مرة ولا بعد يمرز حد نقصوين ولكن هنا أنتي هذا اللذة أو كنت أنت أو ما تذكر شيء جاين عادي أتورا بدن تاي وحال شيء جاي إنه ماشى جودها مرايدي اللي جيبي دبعتوين بدن أي دعان حتى قرش بدن الإسكسود ده العيد تذكر كاركود وحنو شيء جاين إن محتو فكت محت سفي عن لود لي أما كعن الجارسي تاسو أيضا نفتي كذا وقتها أما security وعليه هاي حقوق السيد البوليس أضو كعن أقاضي وكلته ولو سب بوليس هين لكن نكان وهيئة رجيس جريسون وده حقوق لم إذا تنقل بوليس كجارسي سنين الله وقف كسيبن كا حقوق اللي مركز سيد هذا اللي الشيء وحنا ما سيد هذا اللي نقصو جاري إن محتو كعن لو قاضي ماشي ندباتو هنا كما تحفلتنا سيد درتي وسعويسي بوليس أو إمادي كبعدنا حفلة دي وقتي لوجو تلقلي ولو قعدوا في عنده وقتي لوجو تلقى حفلته ساعات أما half an hour إن جاريسو كهر أي حفلة الجوجي سيدا أنا هذا اللي نقصو جاري بل عادي أهان قرمي حفلة كصباح لو ده حفلة ده مسي سعونيس حفلة هذه 6 ساعة
sideed saac marka waqtiga loogu talagalo falaarka qulnayna 9 saac ilaa 10 saac 8 saac oo 30 daqiiqo dhiman camal baad joogsataa 8 saac oo 30 daqiiqo dhiman xaflad ahaantana meeqa saac ay ku ekeed in 9 saac soo muddo hal saac camal ayay xafladii istaagtay marka haddii la fiiriyo khasaare ahaan intay kasoo gaartaa isleedahay dalmaryare iyo showgiisa والله أبو مير هذا دجال كدعو لما قفت يسكت دجالان حتى خسارة إيمانية فاهم يسا مرة خسارة لما دلمر يكون عادي يعدي ودتي مسوي يكون عادي شعب كي العقد سوبي وقلت له قال إني شو هلان شعب كنا يكون عادي وأنا كم ضحى قبل ده حلفة اللي قلت له يكون عادي دلمر يكون عادي سدح هذا بكمان مقام خسارة صوت الدجال هذا مير كدعو صبح بدنا على وين أنا كو واسولي بس أنا العقد أنا سوق الشيء lacag baan bixinaa hadana soo wixii aan rabnay maan helin fanaankii aan dartiis u imaanay abo waqti lamaan qaadan aniga ii jeedid waan arkay laakiin waqtigii aan rabo dalmar inaan kula sheekaysto xataa aan baan la qaato aan baan la kaftamo maan helin laakiin iska caadi kula kaftani sheek ma oo ma tumsa xafladii liiko xafladna oo ma fanaanka labada waa isku ay warkaas amra marka muhiimadda barnaamijkan dalmar waa nin kaftan badan okay waa wartar waa huba ragga bidaarta loo wada kaftan badan ani baa ku jiray muhiimaddu waxay tahay waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijkeeni barnaamijka waxaan kaga hadlaynay in aan faaqidno ama fiirino xaaladii xalin ka dhacday dalka Noori Karaan magaalada Oslo barashowgii dalmaryare iyo caqabadii wajixumadii ay kala kulmeen labada qofood meesha isku gacan qaadi ma dhihi kare aflagaadadii isgaarsiiyey run ahaantii waxaan aniga waani ii tala siinahay dadka walaalahay aanka la dhaho social media baraha bulshada magaca ku leh run ahaantii waxaa fiican inaa asluubtiinii iyo dadnimadiinii aa ilaalisaan qofka markuu sumcad ku dhex yeesho amaba dadka ay ka helaan organis badan samaysto waxaa muhiima in uu dad u yahay role model dadkaasna ay ku daysanayaan special carruurtii yar ee soo koraysa jecel baraha bulshada inay imaadaan ama fanaan noqdaan ama model noqdaan walow misqaawn in lagu daysado aniga aan raalli ka laakiin waa lagu daysan karaa ciddii rabta xagga wanaagsan dee macnaa maa qofka haddaan maanta aan kugu dayanayo micnaheedu maahan adiga camal inaan ku noqonayo aan adiga kuma noqon karo laakiin waxyaalo badan ku wanaagsan tahay kaa qaadan kara soo misqaawan wax badan ku wanaagsan tahay oo gabar aad u run sheeg badan ay loobin okay marka waxa dhaysa dhinaca looga dhinacna looga dayo dhinaca looga dayo intaas naga kaftan waa hadaa ugu yaacaysan adiga ku taala misqaawan waa ogolahay run ahaantii wax badan oo wanaagsan ay leedahay qof wada xun ma jiro qof wada wanaagsan ma jiro ma sha Allah marka muhiimadda hadalkayga wuxuu yahay in dadkiinan baraha bulshada magac ku leh fanaan ahaw ama maxaa qof tiktoker ahaw ama youtuber ahaw inaa maxaa dhalinyarada yararka jecel inay idinku daysadaan inaa role modelkiina ilaalisaan oo waxaa baraha bulshada ka samaynaysaan iska ilaalisaan especially ragga Soomaaliyeed waxaan kula talaa in la iska daa waxyaalaha qaarkood maxaa magaceena hoos u dhigaa aad uma santiin inta barnaamijkan oo kale ku kulmi doono aniga maymuuge waxaan ku darsanay oo ku soo wadaa marka walaalkiin masaakiin maymuuge inta barnaamijkan oo kale ku kulmi doono bal horta ugu horeysaa iraado gabagabada barnaamijka maxaa ku darsanaysaa waxaan ku darsanayaa anigu waxaan leeyahay horta dadkaygii oo asxaabteyda ahaa marna familigeyga ahaa oo xalfada darteed u imaado oo ku khasaaray dad waxaa jira deemimoogan kuma sheegay dad waxaa jira mataqaanaa xalfada dhexdeeda wallahi igu tusa xataa lacagta ay bixiyeen aana joogin hal daqiiqo fanaanka xataa sawir soo qaadan khasaaro soo maaha fanaankina aan la kulmin fanaanka dartiisana lacag badan bixiya soo dadkaas oo dhan waxaa leeyahay raalli noqda xanuuneed 400 koran xanuuneed waa $40 soo waa qaali waxaan uu soo libista qofka haddana qarash buu soo galay bukiir buu tagay ku xisaabtan day soo qarash badan ragga horta qarash badan ma galo 400 inay ka baxda laga yaabaa laakiin dumarkiina qarash badan ay qarash aan gala aniga laba kun corona jamka sus la marka gabdhiga badan way jiraan de marka waxaan leeyahay khasaaro marka waxaan leedahay anoo 2,000 koron ka badan ku soo labistay makeup ku soo marsay isku dhaashay taxi soo qaatay meeshii imaaday haddii xafladii sidii ay tahay u dhiciyso waa khasaaro dagaal ma fiicno dagaal wax wanaagsan ma dad waaweyn tihiin joojiyo fudaydka aada ma santa wax taliyo tusaalaha siinaysa labada qof waxaan leeyahay 7 nin raga adiga
soo nin raga markaa tahayna waa inaad gabdhaha ka xishootid هذا ما صدق هذا ما صدق ولكن مساكين ما يموج يا خالي أو إذا لا أنت برنامج كانوا كلا كل متونو كل تدم بوحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته